kula wacan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah dagaalo culus ayaa ka socda aagga magaalada Tesi iyo deegaanka Amxaarada wararkii ugu dambeeyay ciidamada huwanta ee Tigray oo weerar culus ku qaaday haddaba maxay faa'iido u leedahay Tigray haddii ay qabsadaan magaalada Tesi la yiraahdo wararkii ugu dambeeyay eegi doona Oromada waxay bilaabeen iyaga OLF iyo TPLF in ay isu gurmadaan oo iscaawiyaan si ay ula wareegaan magaaladan muhiimka ah wararkii ugu dambeeyay idin saaxiibayaal duqeymo culus ayaa waxay ka socdaan gudaha degmooyin dhowr ah oo Amxaaro iyo ka tirsan iyo sidoo kale Canfar xuduudda Oromada iyo Amxaarada ay wadaagaan hub waaweyn ayaa ku dhacay maanta dagaalka maalintii lixaad galay wararkii ugu dambeeyay ayaan xoga idinkaga heynaa saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijyadeena ku daawan doontaan aragtida saaxiibada waxa ay ka soo aragti dhiban karaan maxaa xilligan ku soo beegay in maalintii lixaad dagaal xiriir u socdo halkaysa Ethiopia u socota aragtida waa inuu muhiim Amxaaro iyo sidoo kale Tigray ayaa adkaan kara barnaamijyadeena ayaan gudageli doonaa barnaamijka Laxar muuqaalkeena siina shargaray oo saxbada kala gaarsii aynu ku bilaawno warar hadda naga soo gaaray deegaanada furmaha dagaalka waqooyiga Ethiopia ayaa ku soo waramaya in dagaalo culus ay ka socdaan aagaarka magaalada Tesi ee deegaanka Amxaarada ciidamada huwanta ayaa aad waxay isaga difaacayaan kuwa huwanta ee Tigray waxaana TPLF ay qorshahoodu yahay in ay qabsadaan magaaladan Tesi la yiraahdo dagaalka oo dhowr waji ah ayaa waxaa qaybta ugu daran ka socda magaaladan iyada oo sidoo kale ciidamada huwanta ah ee TPLF ay qorshahoodu yahay qabsashada magaaladan haddaba waxa isweydiin mudan maxay tahay sababta Tigray ay xoog u saarayaan qabsashada magaaladan Tesi la yiraahdo waxay xuduud la leedahay deegaanka Oromada oo ay rabaan in ay isku furaan deegaanka Tigray sidoo kale dhawaan ay heshiis wada galeen jabhadda xoreynta Oromia OLF iyo TPLF waxaana sababta dhabta ah ee muhiimadda ay u siinayaan qabsashada magaaladan Tesi magaalada waa magaalo istiraatiiji ah oo ku taala dhulka Amxaarada ayaa waxay xiriir la leedahay oo xadka ay kala wadaagtaa dhanka Oromada deegaanada Amxaarada haddii ay qabsadaan magaaladan waxa ay si toos ah caawimaad uga heli doonaan jabhadda xoreynta Oromia oo la yiraahdo waxa sidoo kale TPLF ay si laba jibaari doontaa dagaalada ay ka wada gudaha Amxaarada iyada oo caawimaad ciidan mid gargaar iyo sidoo kale garba ka heli karta kooxda jabhadda xoreynta Oromia oo la yiraahdo taas oo deegaano dhowr iyadoo naftirkeeda ka qabsatay xuduudda ay la wadaagaan Amxaaro iyo Oromo xadka ay wadaagaan waxa gacanta ku haya jabhadda xoreynta Oromia iyaga oo maalmihii ugu dambeeyay howlgalo ka wada halkaas inkastoo aysan dagaalo weli la gelin Amxaaro laakiin waxay u muuqataa haddii TPLF ay qabsadaan magaaladan muhiimka ah ee Tesi in ay si toos ah isku caawin doonaan oo ay weerar toos ah u soo bilaabi doonaan isla markaana sanad military ciidan ay ugu deeqi doonaan TPLF waa marka awoodda TPLF ay si laba jibaari doonto markaas maadaama awalba ay awoodoodu xoog u saarayeen in Amxaaro ay ka qabsadaan dhulkan iyada oo garab ka helaysa dowladii awoodda badneed ee xukuumadda Abiy Ahmed dhanka kale dowladda federaalka Ethiopia ayaa iska ilaalinaysa Oromada iyo Tigray inay isbahaystaan Tigrayguna haddii ay qabsadaan Tesi oo shacabka degani Oromo ugu badan tahay waxay helayaan taageero sidoo kale jabhadda xoreynta Oromia ayaa helaysa taakulo ama sanado ciidan oo ay ka helayaan bulshada ku nool halkaasi dagaalkan maalintii lixaad ka socda waqooyiga Ethiopia waa kii ugu adkaa tan iyo sanadka dagaalku uu socdo maadaama dagaaladu aysan inta badan sida ahaan jirin oo ay joogsi lahaan jireen waxay u muuqataa in ay marayso dhabka hadal oo ninkii raaya ayaa reerka u haray sababtoo ah dagaalka maalintii lixaad ayaa gobolka usii dhacaya iyada oo aan marnaba hubka kala joogsan darandooriga kuwa u dhaca kuwa fudfudud iyo qoryaha fudfudud ciidamada meedadkooda waxay daadsan yihiin furmaha dagaalka warbaahinada labada dhinac midba midka kale waxa uu ku tilmaamaya inay jabiyeen oo ay guulo gaareen inkastoo aan la ogaan karin xogaha rasmiga ah ee ka taagan furmaha dagaalka haddana waxaa muuqata in Tigray muuqaalo ay baahinayaan halka Amxaarada iyo warbaahinta dowladdu ay qoraallo qorayaan dunida oo dhan ayaa isha ku haysa Ethiopia iyo sida ay wax noqon karaan maadaama xaaladda guud ee Ethiopia aanu weli si rasmi ah loo hadal hayn karin ama loo ogaan karin waxa sidoo kale xaaladda Ethiopia noqon kartaa marka soo aadan ama maalmaha soo aadan mid dhinac loo rido haddii laga adkaado Amxaaro laakiin haddii Tigray laga adkaado waxay muuqan doontaa in dagaaladu ay sii soconayaan maadaama dhulka furmaha dagaalka ah ay hadda ay ku dhex yaalaan gudaha deegaanada Amxaarada Amxaaro ayaa deegaano dhowr ah
waxa ay dagaalo kala gashay waa Tigray oo soo weerartay buundooyinka difaaci ahaa ee Amxaarada iyo dowladda Itoobiya ay ka jareen Tigrayga ayay shalay ka soo tallaabeen iyaga oo si farsamaysan kaga soo gudbay dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya waa uu sii laba jibaarmayaa marka ka dambeysay iyadoo maanta oo maalintii lixaad la maqlayo daryanka madaafiic culus hadda ka loosan Itoobiya ayaan la ogeyn sida ay sal u dhigan doonto maadaama marka ka dambeysay dagaalku uu wajhi cusub yeelanaya dagaalka aan waxba la isula harin ayaa waxa uu xilxaadka deegaanka canfarta dhanka kale u dhaxeeya ciidamada xulafada militariga oo Itoobiya kuwa canfarta oo garab iyo sidoo kale Tebele labadina waxay deegaanka canfarta isugu geeyeen ciidamo fara badan iyagoo dhan walba gacanta ay ku hayaan wadooyin muhiim oo isku xira Djibouti iyo Itoobiya Tebele ayaa qorshahooda waxa uu yahay labada dhinacba inay qabsadaan waa dhanka Amxaarada iyo sidoo kale dhanka canfarta halkaas oo ay isku xir muhiim u yahay doonto استراتيجي noqon doonto magaalooyinka muhiimka ah ay warbaahinadu baahinayaan in ay tahay meesha ugu muhiimsan ee lagu riiqmayo oo aan tallaabo kasto dhibaato ka dhalan karto maadaama magaalo kasto istaraatiiji ah oo Amxaara ay leedahay difaac ay kaga jiraan ciidamada dagaalku waa weerar iyo weerar celis waxa Amxaaro oo waxa ay weerar celis ka tahay weerarkan ah Tigray maadaama Tebele ay qorshoodu yahay qabsashada magaalooyin istaraatiiji ah sida magaalada Gondor magaalada Tisi iyo sidoo kale qaybo badan iyadoo hore u qabsatay magaalada Tabar magaalada Kashan iyo magaalooyin kale oo dhaca waqooyiga dalka Itoobiya dhulka Amxaarada ayay ka tirsan yihiin deegaanadaas oo dhan halka dhanka canfarta aan wali laga soo warin deegaano ay qabsadeen kooxdan Tebele la yiraahdo dagaalka furumihiisa ayuu taagan yahay wali iyadoo dhowr maalmood dagaal isxiga ay socdaan dhanka kale Tigrayga ayaa waxa warar kala duwan oo ka soo yeeraya iyadoo oo la soo warinayo in duqeymo baan ay ka wadaan gudaha degmooyinka Amxaarada iyadoo sidoo kale dagaalku uu ku siisiqay dhanka xuduudda Oromiya Tigrayga ayaa warbaahintooda gaarka ah saacad ka hor ku baahiyay in ay duqeymo ka fuliyeen dhulka Amxaarada iyaga oo madaafiic ku garaacay dhul walba oo ay leedahay iyadoo oo sidoo kale qayb ay ka tahay muhiimad gaar ah u leedahay Tigrayga duqeyntaas iyadoo oo ay rabaan in dadka ku sugan deegaanadaas ay ka barakacaan barakici ugu weyn ayaa ka taagan deegaanadan hadda inkastoo magaaladan Tesi la yiraahdo hadda dagaalku ka socdo kan ugu weyn uu yahay ay muhiimad gaar ah u leedahay ciidamada waa militariga Tebele taas oo kaalin muhiim ah qayb ka noqon karta ilaa hadda lama ogo lamana saadaalin karo tallaabo walba oo xigta xalka Itoobiya hadiisa Oromada iyo sidoo kale jabhadda xoreynta Oromiya weeyaane ee Tebele ay u midoobaan xalka Itoobiya isla markaana ay dagaalka ka soo horjeestaan si wada jir ah xukuumadda Abiy Ahmed waxay noqon kartaa cashir kale iyo taariikh kale oo qormaysa xukuumadda Abiy iyo sidoo kale laf dhuunta gashay ayay la kulmi doonaan maadaama Tebele gooni ay u dagaalameysay jabhaddan oo la yiraahdana gooni ay u dagaalameysay balse hadda waxay u muuqataa in qorshaha socdo uu yahay qorshe lagu mideynayo labada dhinac xaalka guud ee Itoobiya markaad eegto qof walba saadaalin gooniya ayuu ka bixinayaa qof walbaana aragti gooniya ayuu ka dhiibanayaa dadka ugu aragtida qaba ama ugu aragtida dheer ee Itoobiya ee siyaasiyiinta waxay leeyihiin Itoobiya waa ay nadeysay ee Itoobiya cusub goorma imaan doonta laakiin hadda ayaa la dhowraya sida waxay noqon doonaan halka uu xal mari doono wadada rasmiga ee lagu toosi doono luuqa laga leexan doono iyo cidda guusha gaari doonto waynu sugi doonaa sida Itoobiya maalinkii lixaad dagaalkan iyo maalmaha soo aadan sida uu noqon karo way guudaan saxaabyaal barnaamijkeena halkaas ayaanu ku hakinaynaa adaba barnaamijkeena like share garay oo saxaabada kala gaarsiin nabadgelyo